الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتم وناكسنا دلكين باخياتنا داوانا سامير كستوات كسوغتيهين كل سو دوادا وريسي خاصة وانو ليالنا انو مروا سهور حسن أبيب قدوميها قربكا هاوينكا كندا يقودهان با وقويقا أمريكا سيدو كلنا حبين قولها فرينتا حسبكا وطني ugu horeyn marwa suhuur ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah Honkey TV studio-ga magaalada Dubai wandhawahay Cabdi Xaafid walaal maad mahadsantahay waxaag suhuur waxa aan kugu ogaa in aad inta badan ka shaqeyso hawlaha arrimaha bulshada haday noqoto Canada iyo haday noqoto Soomaaliland imika sanadihii ugu dambeeyay aad ku noqonaysay mashruuca hub سنة مسنهayna waxa tahay inantii aasaastay bal marka hore inta aynaan wareysigeena dhinaca siyaasadda iyo hawlaha u galin bal iga waran hawlahaagii arrimaha bulshada halkay marayaan assalaamu calaykum marka hore waad mahadsan tahay waxaan jecelahay inaan salaamo ummadda bulshada Soomaaliland meel kasta ay joogto marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan shaqaalaha Honkey TV waxaan kaloo salaamayaa عبد العزيز هملو استوديو عاوة فرسمة إنه قابلسن عدين تاكسي قدبو أنا مركو بورساتو حاج على سمالان أرمها بالشدر ومهم مركا إن قفل من ميل أيو كقابلسن يعني مركا أنا وحاج على هاي ما واحد كسي سمالان وباهن تهينا سميو سيدا احترافك إن هاي هذي ومقع سمالان هذي قر عن ميل سرقارسيو قف كستنا كدادعيو marka xiga anigu waxaan mashruuca project hub ayaan asaasay oo ahaa sababta aan u asaasayna wax kale ma aha waxaan la shaqeeyaa caruurta caawimada gaarka u baahan marka waxaan ogahay sida ayna isugu toosnayn caruurteenu ama aad baahi aad ay taalo marka maadaama aan anigu iskuul ka shaqeeyo caruurta caawimada u baahan gaarka lagu hayo waxaan jeclaystay inaan wadankeena keeno si looga faa'iideysto markaas suhuur maadaama aad in muddo ka shaqeynaysay dugsiyadan imika dadka reer galbeedka ay yiraahdaan specialist caruurta special needs children with special needs ama hadii Soomaaliba aynu ku eegno caruurta macnaha caawimada dheeraadka u baahan Soomaaliland dabcan ay jiraan caruur fara badan oo laga yaabo inay u baahan yihiin taas ayaa ku kaliftay inaad iskuulka samayso وايو ما كان مريا سكولكي والله وحمريا ميل وناكسن الحمد لله still maxay haday waan ku guda jirnaa sidii iskuulka aan u dhameyn lahayn maxay haday qof kastana uu og yahay sida dadaalka ugu jirno marka imika wuxuu marayaa halkii maxay haday deerkii aan ku sameeyno ugu joogaa wixii kale u dhimana wali waanu ku guda jirnaa inaan dhameeyno insha Allah halkaas u maraya wax kasta oo aan maxay hayday aan u qaban karayna still waan u qabanaa wadigi maqlay habeenkii dhaweyd markaan fundraising ka hadlayay in dadka u sheegeen kulaha kam library waa muhiim laakiin kana waa loo baahan yahay maxay hayday fundraisingadi baa batay dadkii waxa haynteena waan naqaanaa marka markasta oo aan israado fundraising samee oo project hub soo celi ama wax qabo waxyaabo kale oo maxay haday arrimaha bulshada u baahan yihiin sida wadooyinka sida library-ga maxay haday dad dhibaataysan oo jilicsan oo ama roob ku da'ay ama abaaro ay soo saameeyeen ayaa yimaada kuwaasna kama maqani oo always qofka ugu horeeya marka la yiraahdo farnaysin baa la sameeyaa yimaada baan ahay marka sida awgeed maxay haday insha Allah bidnillah kareem waan dhameyn doonaa fundraising-kana waan gali doonaa marka dhibaatada ay haysatay waxa weeyaan meel unba hadiya goor ay dadku ku ururaan inaan imika waxaan anagu groupkii wadooyinka waxaan anagu groupkii library-ga waxaan anagu groupkii maxay haday waxa leedahay mashruucyada badan mashruucyadii baa batay laakiin soo maantaas wanaagsan in mashruucyadu bataan may wanaagsan laakiin waxa la iloobayaa kaagi oo adigoo kaliya lagu gudeenayaa oo laga saaray in inta arrimaha bulshada caruurtuna waa muhiim inay iskuul sameeyaan waa muhiim طبعا caruurtu waa u bixi dalka ay soo korisay aniga iskuulkana waxa weeyaan my dream waan doonayaa inuu yimaado inuu dhamaado come to reality ka farxalato marka uu ka warursanahay وهاجاج سهور
maadaama aad degan tahay Canada oo dabcan wadan horumaray ah aqoonna aad u leedahay la shaqaynta caruurta ay macnaha caawimada dheeraadka u leh wadankii Canada aad faahsan tahay ma isku dayday inaad mashruucaaga aad fundraising iyo dhaqaale uga raadiso isla Canada lafteeda haa markii ugu horeysay halkaas aan ka bilownay stillna waan wadnaa wax easy-na maaha sida marka dadka wax caawiya aad u weydiisanaysid ay ku siinayaan mar walba waxa la doonayaa horta marka hore charity start from home dadkaaga waa inay rabaan inay wixii kula dhisaan marka tiraad halkaasaan soo gaarsiinay waxaas ayuu ninka dhismaha kuwa dhismaha qaabilsan kaas intaas uu siiyay jingadood kaas loo xambiisiyay kana ciid biisiyay like material hadii xitaa lagu siiyo money waxba ma aha oo gacmihii baa loo baahan yahay marka dadka wadankeena wax walba qabsan karayaan ma ayna qof kaliya ku daayaan dhibaatadeena haysataba marka project la sameynayo hadii aanay group gaarhi aanay ku tiirsaneen ama aanay meel ka soconin oo qof isxilqaamo yiraahdo waxa samee isaga lagu daayaa marka sida awgeed ban aanu wali iskuulka u dhameen laakiin insha Allah imika waan dhameyn doonaa kulligeen inagoo isku dhan marka caawimada waa looga baahan yahay from dollar to million waan u baahanahay hadii la arkano marka waxa leedahay Canada oo kale sidii wax looga heli lahaa waa in ay dadka salahan Canadian ku ay arkaan in charity Soomaaliya wax qabsanayso markaas bay iyaguna ay gacanta geysanayaan waa hagaag haddaynu dhinaca hawlaha samafalka oo aad in muddo ah ku soo jirtay aynu halkaa ku dhaafno dhinacii siyaasadana imika lug baad ku leedahay oo dabcan xil weyn baad haysaa gudoomiyaha garabka haweenka ee North America waa dhul ballaaran sidoo kalena waxaad ku jirtaa xubin ka mid ah golaha fulinta goorma ayay kugu dhalatay inaad siyaasadana gasho soo wallahi siyaasadda waligeeyga ma marnayn oo waxaan jeclaa inaan mar siyaasadda meel ay noqotaba aan ka soo galo in kasto aan aad uga jecelahay arrimaha samafalka bulshada iyo samafalka maxay heeday siyaasadana waa laga maarmaan oo arrimaha bulshada ka mid tahay mar kasta waxaan jecelahay inaan habluhu ka muuqdaan siyaasadda hadday doonayaan inay xukumaan wadanka ay madaxweyne noqdaan hadday baarlamaan ka talinayaan hadday guurti noqonayaan hadday maxay heeday arrimaha bulshada wadayaan gabdhaha ama haweenku waa lafdhabarta qaranka marka waxaan anu ka mid ahay kuwa jecel inay mar kasta ay ka muuqdaan oo ay wadankooda meel sare gaarsiiyaan oo ay u horkacaan meesha wanaagsan taas waa ayaan siyaasadda u soo galay anigoo jecel imikana waxaan ka mid ahay xisbiga wadani insha Allah bidmilaahi kariim waxaan jecelnahay inaanu xisbi xaakimka bedelno oo aan maxay heeday halka ayaan ka soo galayaa talada suur wad ka war haysaayo inta badan dhulka Soomaalida haday noqoto Somaliland Soomaaliya maamulada Soomaalidu ay gacanta ku hayaan inta badan haweenku marka hore mooyaane marka sharaxan xilka ay la wareegaan xisbiyada oo kale wasiir haday ugu bataan ayaa la siiyaa kumana badna wasiiradu adigu suhuur ahaan xisbiga wadani maxaad ka filaysaa dhinaca haweenka xageeba ka taagan tihiin maadaama ay tahay gudoomiyaha garabka haweenka maxaad adigu maxaad filaysaa inuu qabto ama aad ugu qaban lahayd wallahi billahi xisbiga wadani waxa weeyaan xisbi hablaha safka hore ay kaga jiraan hablaha la'aantii musoo baxeen sababaha aan u jecelahay xisbiga wadani waxa weeyaan gabdhaha wuxuu ogol yahay inay xukunka la qaybsadaan ragga oo ay ka gaaraan wasiirnimo ama xil sare ka qabtaan qof waliba awoodiisuna halkay gaarsiiso weeyaan iyo sida ay u dadaalaan marka waxaan qabaa maalinta xisbiga wadani uu xukunka la wareego inay hablaha ay iyo inamadu ay maybe 50-50 ayaan jecelahay anigu laakiin sida dhaqankeenu ama hadiya goorda diinta lagu dabaqo maybe 60-40 waan iska ogolaanayna waxaan jeclaan lahaa hadii maxay heeday aniga laga maqlayo ama maxay heeday sidan hadiya goor bay dhaahdo
inay haddii wiil wasiir laga dhigo gabadh ku xigto hadday gabadh wasiir noqotona maxay wiil ku xigo markaa sidaa awgeed aan wada shaqeyno oo meesha ka wada muuqdaan waayo hadday gabdho badani joogaan oo ay dadku meeshayba qurxiyaanba sida aanu gurigaba iyo dee caruurta iyo wax walba ay gabdhuhu ay u qabtaan ayaanu maxay ahayd xilkana u haynaynaa marka wax dhibaatii ma jiraan waxa la doonayaa in kartida haweenka la qiro aniguna the reason aan u sameynaya waxaas dhan waxa weeyaan inaa gabdhaha xaqooda la siiyo maadaama aanu nahay 70% ama 70% dadka codka bixiya waxaan jecelnahay in aan loo isticmaalin inaan cod bixino waxaan jecelnahay in xukunkii la qaybsano inaan wadanka horumarintiisa la qaybsano wax kasta arrimaha bulshada u baahan inaan la qaybsano waad ogtiin hablo imka wax way barteen jaamacadaha ka soo baxaan sidii hore maaha marka hadee iyadoo xaas la yahay oo maxay ahayd hooyooyin la yahay haddana hawshii waa la kala qaban karayaa kuwa gurigooda joogayaana inay ku joogaan hadday jeclaadaan inay wax bartaan kuwa iyaga jecelaan siyaasadda meel sare ka gaarnayna inaana loo ogolaado aana lagu xidhin waxyaaba aan dastuurka ku qornayn because waxaan nahay anagu dowladda dimuqraadiya laakiin suhuur bay leedahay Soomaalidu way u bisishahay amaba Soomaaliland imika haddaynu ka hadalno Somaliland hadday noqoto dowladda iyo hadday noqoto xisbiyadaba way u bislaadeen in ay dumarka badiyaan hadday noqoto golaha baarlamaanka hadday noqoto guurtida hadday noqoto wasiirada xil kasta oo la qabtaba heerka wali ma reer Somaliland gaarin baad leedahay wallahi billahi horta marka la campaign gareynayo qof kasta wax kasta uu ku ballan qaadaa reality waxa weeyaan markna maxay ahayd ma dhaafi karayno waxyaabaha caadada iyo diintuba inagu xukumayso laakiin haddana maadaama aan dimuqraadi wadankeenu yahay dadkiina aanay waxba dhibaato geysanayno oo ay doonayaan in maamulkii laga qayb geliyo waxaan sida ugu bislaadeen maxay ahayd doorashooyinka ina leysde xilku wareegta yahay oo maalinba qof qabsan karayo oo arkaysaan imika inay dowladaha qaar nagaga daydeenba sidii wanaagsaneed aynu doorashadeennii markii aynu qofkii helay madaxweynihii kalena ku wareejiyay ayaan waxaa maxay ahayd tusaale oo aynay Somaliland u bislaatay imika inay gabadh iyo wiilba ay meesha ay awood u leeyihiin ay ka shaqeyn karaan annaguna haddaan nahay xisbiga wadani especially anigu aan gabdhaha afkooda ku hadlayo markasta waxa aan hormarinayaa ama aan ku dadaalayaa inay habluhu xukunka ay ku soo dhiiradaan siyaasadda ku soo dhiiradaan wax iyagu dacadkooda goostaan ay dadaalaan marka aniguna halkan baan idin joogaa aniga ambassador idina qofkii doonaya inuu su'aal weydiiyo way weydiin karayaa soo dhawaada baqanina xisbiga doosa de xisbiga gacmo furan ana idin ku soo dhaweynaya waa wiil iyo gabadhba waaga hoggaanka sare ee xisbiga wadani fikradda aad qabto suhuur ma kula qabaan oo sida aad u jeceshahay in haweenka de qaybtooda la siiyo in la siiyo iyagu saama kula arkaan waliba raggu ma sha Allah markasta waad aragteen gudoomiyahayagu Cabdiraxmaan Cirro markuu hadlayo first of all caruurta iyo haweenka ayuu mahadnaqa uu ku soo dhaweeyaa waan ogtiin markasta inuu yiraahdo hablaha dhalaantood xisbigu mu soo baxeen marka aan face to face aan iskula sheekaysana ama aan isaragnayna hablaha uu ogol yahay inta loogu talagalay xisbiga in la siiyo 40% imka guddiga fulinta habluhu ay ku jiraan 60% rag baa marka taasi waxay ku tusaysaa in qof kasta oo dadaalkiisa halka uu gaarsiiyo uu tagi karo isla iskama kaasinayo xisbigani waa bahweyn maxay ahayd qabiil kuma salaysna qof kasta waa u furan yahay ma sha Allah meel kasta imka xisbiga wadani waa laga hadlayaa anigu halkan baan soo booqday waxaan u imid arrimo gaar ah oo aniga khuseeya iyo inaan xisbiga maxay ahayd empower gareeyay ama aan wacyigeliyo dadka aan garanaynin maanta waxaad kulateen gudoomiyaha xisbiga wadani ee wadanka Soomaaliya Imaaraadka Carabta maxaad ka wada hadasheen maxaad noogu sheegi kartaa kulankiini wallahi horta kulankaygu wuxuu ahaa isbarasho iswaraysi meesha aan ka imide North America sida xisbigu u shaqeeyo inaan wada shaqeyn yeelano maxay ahayd isaguna wuxuu iga waramay sida ay halkan
ay hawsha uga wadaan dad badan oo kalena waxaan ku wada hadalnay telefoonka intaan isu arkin marka wuxuu ahaa meeting wanaagsan oo isagana aan la hadalnay inta kalena ay telefoonada noo soo galeen aanan arkin marka dad badan oo aan halkan iska barano waan isku xidhay marka waxaan oran karayaa imika communicationkeygii iyo de emailladii iyo telefoonadii waan kala qaadanay de waan is aragnay waan wada shaqeynaynaa markaas waxa weeyaan in ay isku xidhnaano oo wixii aan loo baahan yahay marka oo xisbiga u baahan yahay degdeg loogu geeyo marka xisbiga iska noqo un maaha xisbiga wuxuu u baahan yahay maxay ahaydee dhaqaale marka waxaan intii badneed ka wada hadlaynay sidii dhaqaale degdeg ah xisbiga loogu keeni lahaa ama North America ha ka yimaado ama xaggan ha ka yimaado wadamada khaliijka marka maadaama aan Germankii halkan la kulmay aniga farxad bay ahayd inaan ku dhiirigeliyo iyagiiba wadankii noogu dhow markasta inay isku yimaadaan oo ay dadka soo jiitaan oo xisbiga dadka ka dhaadhiciyaan oo ay visionkeena u sheegaan waxa aynu kaga wanaagsanahay xisbiga xaakimka marka anaga xisbigaygu waxa weyn xisbi hablaha waa safka hore dadka jilicsan waa safka hore waad ogtiin markaan campaign gareynay dadku markii ayagu ay meelaha isugu yimaadeen campaign gareyn inaan campaignadii joojinay oo dadka xoolo u qalnay markasta ana waxaan ku gubaabiyay in dadka jilicsan arimaha bulshada sida biyaha sida wadooyinka sida waxyaabaha wadankeena atraafka waxyaabaha aan ka hadalno hadii goor markastana bulshada loo shaqeeyo because marka ay ku doortaan iyaga ku xukuma waxa ay doonayaan waa in la sameeyo aniga that's my vision for Somaliland iyagana waan u sheegaa marka waxaan u maleynayaa markasta inaan isla qaadano وهاك سهور aad ayaad u mahadsan tahay waqtigaaga qaaliga si aad ugu soo booqatay studio-ga telefishinka caalamiga ah ee Cable TV ee magaalada Dubai mar koowaad iyo mar labaad baan ku mahadnaqayaa daawadayaal intaasi waxa aynu ku soo gabagabeynaa wareysigii gaarka ahaa ee aynu la yeelanay Suhuur oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee garabka haweenka ee waqooyiga America xubinna ka ah golaha fulinta ee xisbiga wadani anigoo Cabdixaafid ayaa wareysiga qaadayay dhinaca farsamaduna waxay ahayd Cabdicasiis studio Himilo laanta Dubai anagoo ku sugan studio-ga Cable TV ee Dubai tan intaan mar kale haddii Ilaahay raali ka noqdo aynu kulmayno aniga iyo Suhuur iyo Cabdicasiis waxaan kaga tagnaa daawasho wanaagsan sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh